رمضان كريم waxaan rabaa kaliya inaan idin update gareeyo idin sheego wixii soo kordhay ilaa iyo 24 saac oo isugu gaay dambeysay xaaladaha cusub ee soo kordhay ee positive ka ah 24 saac ugu dambeysay waxa waaye 54 waxa lab ee 40 waxa dhadig ah 14 xaaladaha soo kordhay dhamaantood waxay joogaan gobolka Banaadir 53% dadka maanta laga helay da'dooda waxay u dhaxaysaa 20 ilaa 39 halka kuwa jira 40 ilaa 59 sano ay yihiin 23% dadka maanta laga helay tirada guud ee dadka laga helay cudurka guud ahaan wadanka oo dhan waxay isugu soo aruuraysaa 582 ma jiro bukaan la xaqiijiyay inuu qabo covid kaasoo u dhintay caabuqa 24 saacadood oo ugu dambeysay waa Ilaahay mahadis tirada guud ee dhimashada wali waxay taagan tahay 28 Ilaahay naga haayo waxa ka bogsatay hal qof 24 saac ee ugu dambeysay tirada guud ee bogsatay waxay noqonaysaa 20 mar kale waxaan ku celinaynaa oo aan mar walba ka daalaynin inaan ku celino in cudurkan in laga hortago aad iyo aad muhiim ay u tahay bulshadoo dhan ay iska kaashato sababta oo ah haddii aan xakamayno aan ka hortagno aan is ilaalino oo takhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dadka ka cilmi bixiya ka tala bixiya arrimahan cudurkan iyo cudurrada faafa guud ahaan waxa ku badbaadaya number weyn Ilaahay wuxuu na faray inaan dadaalno in la iska ilaaliyo meelaha buuqa iyo ciriiriga leh si aanan cudurka la isugu gudbinin in faraha la dhaqdo oo saabuun iyo alcohol lagu dhaqdo ugu yaraan 20 seconds guud ahaan caafimaadka yani lagu dadaalo nadaafada guud ahaan gacmo dhaqashada aad loo badiyo in maaragtay banaan u baxa la iska yareeyo hadii aysan daruuri ahayn dadka waaweyn ee cudurrada chronic qabo in si naxariis leh looga ilaaliyo in dadka kale guriga jooga ay aad ula falgalaan in maaragtay hadii la awoodo wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dawladda waxay ku dadaalaysaa in la sameeyo mask oo local ah oo wadanka gudihiisa lagu sameeyay waxa laala wixii la awoodo oo na soo galay oo aan haysanana isbitaaladii intii la gaarsiin kara waa la gaarsiinaya in afka la daboosho sababtoo ah waxa laga yaabaa marmar inaad la kulanto gaariyadii transport la isticmaalay magaalada gudaheeda dadka wali waa ku badan yihiin waxaan soo jeedinaynaa in numberka aad loo dhimo wax kasto keeni kara in la kala dheeraado la kala fogaado waa waajib inaan sameeyno waa ku celinaynaa wadamanaga waaweyn ilaaha weyn yani tabar lacag iyo teknolojiya dhaqaale ahaan ayaa cudurka ilaa iyo al'aana aad ula dagaalamay annaga waajib labaadana saaran inaan dhowrno qofka aad jeceshahay naftaada qofka aad jeceshahay iyo bulsho weynto dhan waa waajibna wada saaran inaan ku dadaalno ma aha in la dhayalsado cudurkan waa ka xumahay maalin walba waxaan sheegayaa inuu number soo kordhay oo aad arkaysaan numberada inay ka bilaabadaan mararka qaar kood 25 35 40 ilaa la gaaray kontameeyo micnaheedu waxa waaye gudihii fiditaankiisa aad u socdaa goboladii maamul goboleedyada kuwii ugu dambeeyay shalayaan sheegayno oo waa soo kordhay Soomaali waa isu socotaa waa dad maxabo badan ay ka dhaxayso laakiin waqtigan waa waqti adag loo baahan yahay in la taxadaro wax allaala wixii aan ku yani xakameyn karo inaan isugu tagno waa mahadsantiin Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa caafimaad iyo soon wanaagsan. Assalaamu calaykum.